maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago 7 daawo oo lagu daaweeyo qalbiga xanuunsan. haddaad rabtid inaad ogaatid qalbiga xanuunsan ama waxyaalaha qalbi xanuunka keeno, labada cajil la soo dhaafay dhageyso. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaala joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalayaal, maalmahan waxaan ka soo sheekeynaynay qalbiga. waxaan ka soo sheekaynay qalbiga iyo ahamiyaduu leeyahay. qalbiga maxinjir dhiigga bamgaraysaa mise wuu ka qiimo badan yahay? qalbigaas miyuu xanuunsadaa? hadduu xanuunsadane maxaa u keena xanuunka? xanuunka ku dhaco qalbigane muxuu yahay? walaalayaal, 3daas arrin kuma noqonayno, waa ka soo sheekaynay. qofkan weli dhegaysanine kilibska hooska ku jiro linkiga ha ka dhegaysta insha allah. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago 7 daawo oo aad u qiimo badan oo qalbiga lagu daaweeyo. si fiican u dhagayso, iskuna daawey, walaalaha kalene u gudbi. daawada koobaad waa qiraa'atul qur'aan. qofka inuu kitaabka ilaahay kala furo uu aqriyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha. sidaa darteed walaalayaal, haddaad rabtid qalbigaaga inuu kuu caafimaado, daawada ugu horraysa waxaa waaye kitaabka ilaahay kala fur. aqri, maalin walba aqri. hal jusba allaha ka dhiga. aqris keliya looma baahnee, ku tadabbur. qur'aanka ilaahay adigu kula hadlooyaa. cabdullaahi bin mascuud waxaa ka sugnaatay inuu yidhi: haddaa maqashid yaa ayuha aladiina, haddaa ku maqashid kitaabka ilaahay, dhagaha taag, adigaa lagula hadlaa. ama khayraa lagu amrooyaa ama sharaa lagaa reebooyaa. daawada labaad waxay tahay maxabbatullah. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad jeclaatid. ilaahay jeceylkiisa ma iska imaana mise waa wax la qabta waaye? ilaahay jeceylkiisa waxyaalaha keena waxaa waaye acmaasha khayrka inaad samaysid. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: waaladiina aamanuu ashaddu xubban lillaah. qofka markuu muslim yahay, iimaankiisa ka shaqeeyo, kor u qaado. saan ognahay ahlusunna waljamaaca waxaan ictiqaadsannahay iimaanka inuu ziyaado nusqaamo. wuxuu ku ziyaadaa waxay tahay daacada ilaahay iyo camalka wanaagsan. qofka markuu iimaankiisa ziyaadane, ilaahay jeceylkiisa wuu u ziyaadaa. wuxuu ku nusqaamaa macsiyada. qofka hadduu iimaankiisa hoos galane, qalbigiisa wuu madoobaana. tan saddexaad waxaa waaye dikriga ilaahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kasto inaa xusti. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub. nabigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: alaa ukhbirukum, warhooy ma idiin sheegaa acmaashu uu ilaahaygiina boqorkiina jecel yahay, darajo kor idiin geynayso, ka khayr badan dahab iyo fida inaad bixisaan, ka khayr badan inaad jihaad gashaan. saxaabadu waxaan: balaa yaa rasuula allah. markaasu wuxuu yidhi: dikrullah. dikriga ilaahay walaalayaal waa wax fudud. hadda intaa guriga joogtid, subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim meeqa maraa dhihi kartaa? nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay waa 2 kelimo: xabiibataani ila araxmaan, allaha raxmaanka jecel yahay. khafiifataani cala lisaan, carabkana ku fudud. thaqiilataani fi lmiisaan, miisaanka aakharana ku culus. subxaana allah wabixamdi subxaana allahi alcadiim. sidaa darteed walaalayaal, waxaa idinlaga baahan yahay waddada intaa socotid, cuntada markaa karinaysid, markaa keligaa tihid, carabkaaga ku mashquuli dikriga ilaahay, salliga nebiga, subxaana allah, alxamdu lilah, walaa ilaaha illa allah. qalbigaagane daawo u yahay, aakharane ajir badanaa ku helaysaa. tan afaraad waxaa waaye tacdiim shacaa'ir illaah. shacaa'irta ilaahay inaa weynaysid. markaa aadaan maqashid ka daba celisid. markaa aragtid kitaab dhulka yaalla inaa qaadid. kelmada ilaahay markaa maqashid inaa weynaysid. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: waman yucadim shacaa'ir allahi fainahaa min taqwa alquluub.
تنشنات وحاواي اعتزال الفتن ميل فتنة هدا أركتد أما شهوات وحن لغو سمينا هدا أركتد كتك لأن قلبي جاي تأثير كسمينيسا قلبي جانا وحنوصا نبينا صلى الله عليه وسلم وإنا قديقي وحوير بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم سيدا درتد وحالا جاقا باهي إنا كفوغاتد ميل كستو إلهي لغو عاصناي ميل بين لغو هاي كتك ميل وح لغو خياناي كتك ميل غش لغو سميناي كتك ميل خمرئي زنئي وحن لغو سميناي ميل كستو فتنة لغو سميناي كتك سو قلبي جاقا وعافي ماضو تنلي حادنا وحاوي الدعاء هدا أرت قلبي جاقا إنا حنون كدرينتد أما سيوه رؤوسا أهين قعمانك إلهي كرؤوغو تاك انتو سنكو إيمانين الدعويسو نبي صلى الله عليه وسلم دعوين وحاجر ومرول بكو دعوي سنجري دعو حاجر آد وبدين جري أي صحابتنا نوسو وريين دعاء اسمه كو دعوي سكا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دعاء مركز تو دعويسو نبي كصلي صلى الله عليه وسلم أي مرول بكو دعوي سنجري إلهيو الله قلبي قد قدي وقلبي كسوك دين هذا هدو قلبي دين تكسوك مو قلبي وكو دقيا سيدا درتد وحالو باهايا دعاء مركز تبدي كد دعويسينو إلهي قلبي كوسوك نبي وحونو شيء قلبي إنه كجرا لبفر وفراه إلهي كمده صدور ربو قد قديا سيدا درتد إلهي وحاوي ديسة مركز قلبي إنه كسوك دين تا إسلام كا لحظاس آخر مركز سميسيد وحا كسوك قبيسا تنتضبات وقم مهمسا وحاوي المراقبة والمحاسبة نفت هذا إنا مراقبيسيد وضدان كسوك ما صحسن تحي مركا مراقبة ذا سميسيد كدبني لحساب تنتيد أو المحاسبة محائقة قلدا محائقة صحسن هذا نفط هذا مركو هور الجدول أسميسيدو صحسن كدبنا إلى لسدو حساب لتمادد إن شاء الله قلبي جاجا نبوها جاجا نفط هذا وهجاجا النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قفك كيسك قفك عقلي قاله قفك وناكسا وقفك نفتيس حسابه أنا عمل فلو ما بعد الموت وحان ولشان كدن به قفك سوا قفك عقلي قاله وقلبي سن إلى لنا نفتي سنة إلى لنا وقدم بينتي ولا لا نفتي إذا يتينا وحن قدر دارما إن أنت ضبطان داو كد دارنو ساكو أوغاتي جراداني أو قلبي كد عضو إيه وحيالها كينو عجلوينكي لسو دافي دقيسو خير الله كسيو كنه كفا إليسو ولا لها كلاني أسي قدبي هدا ربتد إنا أوغاتد قلبي جان ميقو أقيب سما ابن آدم كما هل قلبي هاستان مسلبو مسسدح محيك ليهين هدارتنا أوغاتد وإنو حلقوين كسو صعدو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولا لهنا كلا أسي قدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.